السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا كحرن channel كينا Somali Universe كسو هذا مركل اليوم برنامج كيني أريمها بالشدة أسبوعا برنامج كيني وحن كسو قادن دونا قبر تورتي مصحف كقرآن كريم كدبنا الله معجزة رباني هكودي وكيسي حيوان كدوليا balse inta aan gudgalin kor barnaamijkeena haddii midaan ay tahay booqashada ku guureysay channelka fadlan ha iloobin inaad subscribe saarto aarno ku bato batanka notification-ka si ay ku soo gaaraan fiidiyoodii ugu dambeeyay aan soo upload gareyno mahadsanid qisadan aadka u xanuunka badan ayaa waxay ka dhacday gobolka Ristaaq ee Saldanada Cumaan kadib markii gabar ay tuurtay musxafka quraanka kariimka una ilaahay ciqaab degdeg ah ku riday una ku awaalmariyay inuu ka dhigo xayawaan u eg dawliga qisadan ayaa u dhacday sida tan gabarnan ayaa daawanaysay TV uu ka socday show heesa ah hooyadeedna quraan ay halkaas ku akhrisanaysay kadib gabadhii ayaa hooyadeed u sheegtay inay halkaan isaga tagto oo meel kale ay ku akhrisato quraankeeda balse hooyadii ayaan warkaasi waxba ka soo qaadin oo quraankeeda ay sii wadatay gabadhii ayaa caralo dhacday hooyadeeda oo kutubkii quraanka kariimka ay ka tuurtay oo si caral leh ay ula hadashay hooyadeeda kadib ayaa Allah caradiisa ku dhacday oo ciqaab ayaa la tusiyay gabadhii Allah ayaa isla markii ku ciqaabay gabadhii inuu ka dhigo xayawaan u eg dawliga la ilaaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin gabanan ayaa muteysatay laba dambi oo waaweyn mid waa quraankii kariimka oo ay dhulka la dhacday midna hooyadeed oo ay si caasnimo ah ولا dhaqantay qisadan waxay dhacday sanooyin ka hor balse qisadan waxay mudan tahay in lagu cibr qaato marar badan waxaynu aragnaa isagoo quraanka la aqrinayo in halkaasi heeso dhagaha aan ku xirano oo aan quraanka iska boojeeno ilaahay caradiisiisan kuugu dhicin walaal ka digtoonow qof walba oo muslim ahna gaarsii fariintan ma sanadin